السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وقبلي نصر إذله welcome to my YouTube channel إذينا ود مقال كلا عصب سأوجد ماشي صحن كده كاركي وحن كده شقضة كلمانتي ذي ألابيه جان وباهنا فاسلينكي وحيابيه يران وباهنا ينكسي ردنويا عوضة وحن كده شقة وسيساعد الناس شبتاين لي هاي انتينا أنا في نرويج جا أقونين إرجع صحلا وليجها آموسين معنيه سنو حوا وليجا عدالة درها كآموسين inta saddex intaas ugu gudbo muuqaalkayga maanta waxaan ku dhahay waxa la yiraahdaa nolosha soo diyaar garow nolosha uma diyaarsanid especially maadaama aniga aan hooyo ahay gabar aan ahay waxaan si qaas ula hadlayaa gabdhaha dhalinyarada iyo hooyooyinka nolosha soo diyaar garooba waxa laga yaabaa in Astrid Nasr maxay ka wadaa nolosha soo diyaar garow walaga gabdho badan oo waxa jira maanta nolosha aan u diyaarsanayn oo adduunka meel buu ku nool aday ahaalad wadankeena Soomaaliya hadee ahaaleed Yurub America meel kasto Afrikada kale Carabaha sababtana waxa waa ma haysatid maskax ah inaad markaadi horeba uma aadan soo training garan ama ma aadan soo diyaar garoob inaad noqoto gabar isku filno cagaheeda ku taagan gabar isku filno cagaheeda ku taagan waa gabar waqtigeeda aan maalayacni isaga luminin waa gabar maanta waxaan ku dhahay wax kasta oo ka hor yimaad hard work wax walba oo ka hor yimaado nolosha isku dayayso nolosha ay ku nooshahay qof active ina noqoto qof maskaxdeeda ma aragtay wax raadiso qof meel walba ay joogto ka muuqato ma tahay waa ku ogahay gabar noocaas ah ma tihid maxaa yeelay gabar noocaas hadii aad tahay noloshaada maanta positionka aad taagantahay ma aad taagnaateen marka see ugu gudbi kartaa waxa ugu gudbi kartaa meel walba aad joogto ha dhihin maanta waxa laga yaabaa marka aragtid muuqaalka inaad tiraado oo Nasra wallahi waxa ku dhahay Yurub ay joogtaa waxbay baratay laakiin anoo Yurub joogo anoo wax bartay hadana dhaxantaas iyo mugdigaas waxa ii soo bixiyay waa inaan aqbalo nafteyda waa inaan nolosheyda cagaheyga aan ku istaago hadii maanta aad waalidka u lacag leeyahay ama walaalahay lacag leeyihiin ama ninka ku qabo oo maanta wax walba ku siinayo hadana naftaada waa inaa haysataa wax mindset maskaxdaada meel u socoto oo inaad maanta wax yar aad sadaqaysanaysid waxaad maanta waxa ku dhahay aad wax ku sameeysanaysid waa inaad ma aragtay noqdaan wax adiga aad shaqaysatay ma ogtaa waxa aad shaqaysato 100% hadaa sadaqa ka baxsatay ajirkooda adiga askale gabray taas waxa laga yaabaa inaad maskaxdaada ku training garan Astrid okay aniga wallahi billahi ninkan ay qabo xulbo siinaya tomorrow ninkan uu dhiman karaa waa kala tagi kartiin xagee nolosha ka bilaabaysa baa fadhi ka kac fadhi qof ku dharagta adduunka lama sheegin gurigaaga yar waxaan ku dhahay business ka sameeyso ilaahu waxaan ku dhantaa cunto karisma gadid meel walba aad joogtid you have no excuse my dear ina soo firiisato tiraada aniga waxa waaye meeshaan aan joogo opportunity shaqo ma lahan meel kasta adduunka inaad dhaqdhaqaaqdo bas kaaga xiran tahay laakiin hadii aad rabid inaad dhaqdhaqaaqdid oo aad rabto meeshaas inaad fadhiso waqtigaaga maanta aadan ka faa'iideysano maalayacni aad ku bixiso adaa isdhigay nolosha uma aan soo diyaar garoobin berina caruurtaada ma diyaari karto waa ka xumaa eragaas inaan ku dhaho bari ma soo saari karto cunug quality iyo tayo leh ma soo saari kartid shaqada waan ka soo dhamaaday guriga amaado quraacdeedii yareedan sameystaan cunooya marka waxaan ku leeyahay waqtiga shaqada waa mid ina naftaada financialka u soo diyaariso taas waa mid tan labaad diinta waqtigaaga gabareeyo maalayacni kaaga bixin gurigaaga cilmi ku dhex yaala online ka gal online koorsooyina jira wax ka baran kartid diinta adoo gurigaaga jooga baran kartaa ma ogtaa hadii aad tahay gabar diin ahaan iyo aqoon ahaan u diyaarsan waxa aan ku sheegayo dhan uma baahnid diinta waxa soo dhan ku fareyso marka noqo gabar diinta xoog saarto gabar cilmiga kala barato gabar powerful ah noqo oo nafteeda u soo diyaariso adduunka ay la falgalayso balanteen waxa waa inay soo baxaan gabdho badan oo gacmaha soo taagto yiraahdo yes noloshan isku diyaarinaya meel baa jigti waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh de videogan la share gareeyo